maqalnaa madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa wadan hebel. Madaxweynaha Soomaaliya oo safar ugu ambabaxay wadan hebel. Hase yeeshee, tii ugu weyneed isbuucan ayay ka dhacday wadanka Uganda, qaasatan shalay toole 8 bisha mar madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqday dhigiisa Yoweri Kaguta Museveni, madaxweynaha keligii taliska ee aan dhicin ee dalka Uganda. Sargaalkan hore ee jabhadka militariga soo maray ayaa ku cambaxay inuusan hadallada qarinin. Musa ayaa Xasan Sheekh dhagaha ugu shubay waano waayo aragnimo iyo sidoo kale xaqaa'iq badan oo uu ka ogaa Soomaaliya ilaa iyo heshiisyadii iyo isjiijiidkii dhex maray Farmaajo iyo Sheekh Shariif wuxuuna yiri: waan u sheegay dadkan oo dhan, sidoo kalena kuwan wafdiga ee kula socdana waan u sheegay Master Xasanow in ay ku sheegeen ma ogi. Waxaan ku iri Soomaaliya waan ka celin karnaa cadow soo weeraray, waan difaaci karnaa, waana la dagaalami karnaa, laakiin Soomaaliya uma xoreyn karno dhulkeeda, nabadna anagu uma keeni karno, hase yeeshee waan caawin karnaa. haddii ay rabaan hubka yaryar ee hub gacmeedka loo yaqaano waan u iibin karnaa, tuutaha iyo agabka ciidanka waan sii karnaa, xitaa cuntada waan sheer garayn karnaa, waan wadaagi karnaa. hase yeeshee mushaarka idinkama bixin karno. mushaarka waxaad weydiisataan bilha idinka bixiso Imaaraadka ma la yiraahdaa iyo kuwan kale ma aqaano, Qatar dowladda la yiraahdo iyo Turkiya. horta ma aqaano sababta mar walba dalal kale ugu tiirsan tihiin. way fiicnaan lahayd in adinku isku tiirsanaataan, sidoo kalena adinku aad is aamintaan oo wadankiina awoodiina aad ku xoreysataan. sidoo kale waxaa loo baahan yahay in adinka hogaamiyayaasha aad ku wacyigelisaan dadkiina, qaasatan ehelkiisa, nin walbaba walaalkiis, wiilkiisa, adeerkiisa iyo abtigiis uu ka dhaadhiciyo kaalay aan difaacane dhulkeena hooyo iyo guryaheena. sida ayaa loo baahan yahay, maahane wadankeena hana loo xoreeyo. macquul ma ahan. Now I told these people that we can help Somalia to defeat this, because if it is a question of weapons, we can buy them and give them uniform. We can buy even food. We can share, but what we cannot manage is salary. Salary every month of big number we can't manage. So once you say salary, then you now go to UAE, they pay 1 month, then here Qatari, I don't know what, Turkey, what? So when will these people get security? When will you get security? Because you need security. If I'm a poor man, I don't have money, but I can defend my home. I can mobilize my son and my brother, and we defend our home. Nobody is paying us. We want peace. daba hadalka Museveni oo si badan dadku u kala qaadqaadeen siyaabo kala duwan loo fasiray ayaa xigmadda ku jirta waxa ay tahay dhiirigelinta ah in hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ay ka tanaasulaan lacag, hanti, dakhli iyo dhaqaale, sidoo kalena ay ciidamada dawladda ku shubaan wacyi ama xaqiiq ah in ay dalkooda xoreystaan baahi kasta, darag kasta iyo gaajo kasta iyo xaalad kasta. sidoo kalena ayagu ay nafsadooda ku dabaqaan, sidoo kalena ehelkooda, caruurtooda iyo qaraabadooda ay ka qayb galiyaan halganka dalka lagu xoreynayo. suurtagal maahan wiil islaameed inaad ka dhaadhiciso dhimo, wiilkaagana aad dhoofsato. Museveni xaqiiq jirta ayuu u sheegay hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ha aqbalaan hase diidaane. haddaba bulshada Soomaaliyeed maxaa nala gudboon?